They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa huwa ar-Rahman. La ilaha illa huwa ar-Rahman. الرحمن الرحيم المالك القدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد درسigeenan wuxuu noqonayaa darsigii 13aad ee aan kaga hadlaynay axkaamta iyo fadliga ku jira bisha Ramadaan. darsigana wuxuu ku saabsanaan doonaa inuu qofku ka faa'iideysto soonkiisa maadaama soonku uu fursad yahay, maadaama uu cibaado ilaahayna ku adoonsaday yahay subxaanahu wa tacaala, maadaama uu yahay fursad sanadle ah oo markiiba hal mar sanadkii ku soo mari doonta, maadaama aadan ogeyn inaad Ramadaan kala gaarayso. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa hali maalin bay ceel joogtaa. sidaa daraadeed waa in maantoo kale laga faa'iideystaa xilliga bisha Ramadaan la joogo oo qofka alla uu gaarsiiyo inuu ka faa'iideystaa loo baahan yahay. sidaa daraadeed ma habboona qof caaqila oo muslina inay bisha Ramadaan soo marto oo uusan ka faa'iideysan, yaa uusan ku hormarin xagga khayrka iyo wanaaga. maxaa yeelay bishaanu bilaha kale la mid maaha, bilaha kale la mid maaha. waliba culimadu waxay yiraahdeen bilaha sanadka bilaha ugu mudan ayay ka mid tahay. sidaa daraadeed waxaa la doonayaa qofku inuu ka qaato oo uu kaga faa'iideysto bishaan duruus iyo cibar, inuu ku cibro qaato, inuu duruusta ka qaato, inuu ku waantoomo. sidaa daraadeed duruusta madrasadan laga qaadanayo oo qofku uu ka tababaranayo bisha Ramadaan, yacni waxaa weeye waa in xayaatadaada ama noloshaada, waa in cibaadada iyo baqdinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inay saamayn ku yeelataa. waa inaad tiraahdaa, waa inaad noqotaa qof ku saamooba bishaan Ramadaan. sidaa daraadeed waliba waayaha inagu aynu nool lahay oo awaaye aakhiru zaman ah oo fasaadku uu fara badan yahay, yacni waxaa loo baahan yahay inaynu si aada uga faa'iideysano, inaynu yacni madrasadaas Ramadaanka ah inaynu u camirno sidii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu u camiri jiray, inaynu uga faa'iideysano si mudan in looga faa'iideysto oo aysan cayaar ina ku dhaafin. duruustaas laga qaadanayo oo la rabo inaad ku saamowdo, oo la rabo inay naftaada ka muuqato, oo la rabo inaad noqotid qof ku sifaysan, waxaa ugu muhiimsan ilaahay taqwadiisa subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay soomka marka layna ku farad yeelay waxa aynu soonka ka faa'iideyno oo ugu horeeya waxaa lagu sheegay lacalakum tattaquun. sidaa daraadeed waxa weeye taxqiiq macna taqwa, waa inaad macnaha taqwadu ay leedahay oo ah ilaahay in laga boqo, inaad maaragta maxaan ku leeyahay xaqiijisid. maxaa yeelay taqwadu waa maqsad ama waa ujeed sare oo laga leeyahay fariidada soomka. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. kuwa iimaanka lahow waxaa laydinku farad yeelay oo laydinku waajibiyey ya asiyaam inaad soontaan, kama kutiba cala aladiina min qablikum, sidii dadka idinka horeeyeyba uu waajib uga ahaan jiray. yacni haddii la rabo jaangooyada iyo axkaamtu ha kala duwanaatee, laakiin iyagana soon baa ku waajib ahaa, inagana soon baa ina ku waajiba. lacalakum tattaquun, waxaad mudan tihiin inaad ilaahay ka baqdaan subxaanahu wa tacaala. sidaa daraadeed cumar ibnu khataab radiallahu canhu wa ardaah ayaa weydiiyey ubay ibnu kacb radiallahu canhu, ayuu weydiiyey maa hiya taqwa, taqwadan la sheegayo oo qur'aanku ka waramay maxay tahay. ubay markaasuu isagoo ka jawaabaya wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin
أميرك مؤمنين تو عمر بوشيغيا أما سلكت طريقا ذات شوك طريق قدح ميرانة oo xanan ka baxo oo jeerin ka baxo oo sarmaani ka baxdo oo inkaaro dhan wax alla wixii qodaxaha oo dhan la isugu keenay ya miyaadan marin qaala wuxuu yiri Umar bala waan maray qaala markaas Ubay wuxuu yiri famaada sanacta maxaad samaysay markaad qodaxda dhex maraysay qaala wuxuu yiri shamartu waan xayd waan tafaxaysayo maryahaygaan urursaday si aan maryuha qodaxda uga qabsan oo markaasaan wajta hottu waa dadaalay yani meesha aan marayo halkaan saanta dhigayo sidaan u soconayo saan isu ilaalinayo baan intaan maryahaygii urursaday ka fakaray qaala wuxuu yiri Ubay fadhalika taqwa taqwada lagu sheegaya waa midda waa inaad ilaahay ka dhowrsatid subhanahu wa ta'ala waa inaad maxaarimta alla ka dhowrsatid subhanahu wa ta'ala وإن طريق إلهي كور لغاي كتوستد وإن تراعي طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك وحال ربا تقوى داس إن نكقاذنو بشان أو أي نكقاذنو تقوى الله سبحانه وتعالى لذلك أي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق يعني وكيل لوغمر خاتك عي جنة إن أسوأ أدونك جوغة موجودة أيا وحو ويدينيا معنى التقوى ومحي معنى التقوى أيو أبي ويدينيا وحولي بلنيو أرنتها إي شيك موجودة عمر مركا تقوى جاهل كما أها لكن وحو أرنكا ويدينيا المزيد من العلم إنو هلو يا وحال غيابا إن يتهي من باب يسأله ويصدقه هو ويدينيا يو هذا هو الرمينية سيدي مركي جبريل عليه السلام ويمد نبي صلى الله عليه وسلم وإيمانك ويديي ونبي وشيء ويري صدقت ويدخل الله يابين يعني وحويه ويدينيا هذا الرمينية سيدا درادد يعني وحويه حديث كديرا بخاري أوليي يعني جبريل عليه السلام ونبي ويمد حديث كديرا يكشرت لذلك عمر مركا إنه سيادة تقوى إنه زياد سدو برشا علمي يعني إنه حسوسته سبب بدن أياكو بحن كرا إنه ويديو سيدا درادد وحال الربا إن لقود دالو إن لحقيجيو تقوى إلهي سبحانه وتعالى أصون كاغا التقوى كفائدد أصون كاغا ونفت هذا وحكا بدلو أصون كاغو وسامين نفت هذا كويشو مركا بش رمضان أيضا ماتو لكن هدي أركتد إن هذا بشير رمضان كساموبين أو أركتد رمضان مركو رماده أديقو إسكشب كحسنا يو وحاجة يكون نقضي نحلك لها وحد وقاتها إن رمضان كسامين إن حتى علامات كالغوغرتو إن عبادات هذه اللي أقبلها وحكم بذا إن إسبدل كوغدعو مركز عبادات كبحدي سيدا درادات وحي أرنتو أبا هانتهي إنو قفكو نفتي سلا حساب تمام إنه قفكو نفتيسا لجام حكما إنه كوقبته نفتيسا إنه حكمايه إنه دروس من تقوى الله تبارك وتعالى إنه نفتيسا سيو يا دروس تقوى إلهي سبحانه وتعالى إنه سيو يا يعني إنه سمايه وحأل أوجعليها وكرها لله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أيال لو يدي عن معنى التقوى وحل عليه بل تقوى كور تقوى بحيتها فقال وحيري هو الخوف من الجليل وإن إلهي كبقدت سبحانه وتعالى الله وين أود له إن كبقدت والعمل بالتنزيل وحي سود دقي يا يعني كتاب كأي السنة إن كل قنتد ويه قرآن وإن كل قتا ومنهج كون نقطة وإنه أديك منهج كوي هي وإنه قيس كاجا منهج هي وإنه بلشة منهج النقطة وإنه دولة منهج النقطة إيه والقناعة بالقليل حوغاغا ير oo alla ku gartay subhanahu wa ta'ala inaad ku qanacdid ee aan damacu kula tagin wuxuu yiri ninkii shibriyo duulduulka badan hadaa dagi aqoon weydo mar un baad libaax labadiidan dalaq tiraahda yani hadii aad adduunka daba oradid oo aad qof tamaaca noqotid ya oo tamacaagu aad u farabato oo u tan dhaafo waaga dambe waxa laga yaabaa inaad sirq gashid oo adduun iyo aakhiraba aad ceebowdid
sidaas oo kale waxaa lagaa doonayaa wuxuu leeyahay walisticdaadu liyowmi araxiil inuu qofku u diyaar garoobo maalinta adduunka laga guurayo marka waa maxay alkhawfu min aljaliil ilaahay oo laga baqo walcamalu bitanziil wixii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala oo lagu camal falo walqanaacatu bilqaliil xogaaga yaroo alla kuu qoondeeyey subxaanahu wa tacaala inaad ku raali noqotid iyo walisticdaadu liyowmi araxiil iyo inaad u diyaar galowdid maalinta adduunka laga guurayo oo qiyaamaha ah sidaa daraaddeed yani waxa weeye waxaa la rabaa inaynu aad iyo aad uga faa'iidaysano oo aad iyo aad aan ugu dadaalno inaynu bishaan uga faa'iidaysano camal khayr ah oo aysan cayaar nagu dhaafin waa tuu lahaa shaacirkii khallid dunuuba sagiiraha wa kabiiraha haada tuqa iska ilaali dembiyada waaweyn iyo kuwa yaryar ka tag maxaa yeelay taqwada laguu sheegayaaba waa sidaas ya واصنع كماش فوق أرض الشوك يا يحذر ما يرى أصع سيدي قف دول قضح لمرية وكدك تونو اسكا إلى لنا يوحى أوجيد أو قضحة لا تحقرن صغيرة دنبي يرها يريسن نهدين كانوا وايريها يدب مله إن الجبال من الحسى محايا لبوروه با قرورح بي كسميسيين وقرورح ليسو جييو طبعا بور بين نقطة مركا صغيرة كدر dembi yar mid yar ku dar mid yar ku dar mid yar ku dar mid yar ku dar dabeetana dembigaagii buur ayuu noqonayaa lidaalika yani waxaa weeye cali bn abi aalib radi allahu canhu taqwada markuu sharaxayo yani macno weyn uu ka bixiyey inuu qofku ilaahay ka baqo inuu tanziilka wax alla soo dejiyey ku camal falo alqanaacatu bilqaliil xogaaga alla ku siiye subxaanahu wa tacaala yani waxaa la rabaa dadku inay ku noolaadaan tadbiir wanaagsan qanaacada waxaa ka mid a tadbiirka wanaagsan يعني وإن سيدا أد ماموليسو مانج غرينيسو waxa alla ku siiyey waa inay tahay sida ugu qurux badan yani waxa weeye marbaad wuxuu awoodaa qofku daruuriyaadka kaliya marka daruuriyaadka ku gaabso xaajiyaadka iyo kamaaliyaadka iyo yani hadaad cuntid kibis saliid leh ama muufa saliid leh hadaad cuntid waa noolaanaysaa beri ma sugunta teers hadaad cuntidna waa noolaanaysaa laakiin hadee inta alla kuu gartay adigu waa inaad qoondaysataa waa in guriga yani ninku wax soo gala waa inuu si fiican u manage gareeyaa xaaskiisu waxa guriga lagu biilayo waa inay si fiican u manage garaysaa dawladdu waxa yarka ay helayso waa inay si fiican u manage garaysaa yani waxa si fiican loo maamulayo yani waxa ka dhalanaya alqanaacatu bilqaliil inaad wax yara ay kugu filaadaano aad qanaaco yeelatid markaas mawjud aad qanaaco yeelatid ayaa ka dhalanaya lidaalika waa ceeb inay bisha ramadaan inoo dhalato oo cuntada iyo cabitaanka aynu iska dayno oo yani bishu ay isu bedasho يعني waxa weeye bil cuntada laga soomo maalintii habeenkiina birima iyo sugunta ee teersan la isla dhaco oo israaf iyo xadgudub cuntada subaxii hadana la daadiyo iyagoo dad badan oo muslimiin gaajaysan yihiin oo yani daaca qurun iyo maaragta maxaan ku leeyahay qaar baad arkaysa taraawiixda masaajidka kuma tagaya inta cuntada iska soo badiyaan hunqaaci sii daynayaan markaas masaajidkii looga guuraya lidaalika waxa soo dhan lama rabo yani waxa la rabaa qofku ya akhi waxaad ku noolaato uun mawjada baa kugu filan sidaa daraadeed soomkeenu waa inuu noqdaa soom sharciya oo aynu ilaahay uga baqayno oo aynu ka dheeganayna taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xaqiijinaya lacalakum tattaquun haddii kale maxaad noqonaysaa xadiidkan aad ku sifoobaysaa man lam yadac qawla azuur qofkii aan ka tegin hadalka been abuurka ah iyo walcamala bihi ku camalfalkiisa falaysa lilaahi xaaja ilaahay wax dana kama leh في أن يدع طعامه وشرابه إنه عنتديس يعبديس كتغو إلهي وحاجة يدن وكلي هي مجرته يعني وحويه قفكو ما هكليه إنه عنتدك الصومه ما هكليه إنه يعني محان كليه هي حديثك بخاري أيا وريي ما لكن قفكو إنه النقضاء قف فلنية حديثك النبي صلى الله عليه وسلم لقى ورينيا أبو هريرة ورينيو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث كاس مركب بخاري يا مسلم أيا ورينيا سيدا دراديد عبسيدا إلهي سبحانه وتعالى يعني وحويه ولقى قاضنيا إنه قفك إلهي هو استاغ سبحانه وتعالى أسوأ يسد اللينيا أسوأ أخو شعسا
asagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysan oo iimaan yaqiina qalbiga ku haysta ajar ilaahay ka xisaabsanaya subxaanahu wa tacaala sidaasoo kale ayaa soomkana la rabaa qofku inuu iimaanan waxtisaaban ku shaqeeyo oo yacni waxaa weeye uu ku dadaalo inuu gaaro manaasil almuttaqiin dadka muttaqiinta ah booskooda inuu gaaro haddii kale qofku wuxuu ku sifoobayaa xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ee odhanayay man lam yadac qawla azuur qofkaan hadalka been abuurka a ka tegin iyo walcamala bihi qowlu zuurka inuu ku camal falo falaysa lilaahi xaaja ilahay wax dana kama leh fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu inuu cuntada iyo cabidda ka tago oo cuntadiisa iyo cabiddiisii uu ka tago ilahay wax xaaje a kama leh xadiidka bukhaari baa warinaya yani marka qofku inuu noqdo sac cawskii laga xiray oo halkaa yani wax laga dheefaya aysan jirin ya lama rabo yani haddii kale qofku hadduu soomkiisii uu taqwadii ku xaqiijin waayo oo uu la imaan waayo inuu taqwo xaqiijiyo yani waxaa dhacaysa qofku inuu soomkii ka faa'iido yani gaajo iyo haraad ilaahay inaad gaajootid iyo inaad haraadid yani waxa weeye wax xaaje a kama leh laakiin waxaa la rabaa inaad maqsadka aad xaqiijisid oo ah lacalakum tattaquun ya maxaa yeele ilahay dadka inuu ciqaabo soomka uma soo dejin mawjeed sidoo kale nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay ruba saa'imin fara badanaa mid sooman oo xaduhu min siyaamihi aljuucu walcatsh laakiin waxa uu ka helayo abaalka soonkiisa uu ka helayaa uu yahay gaajo iyo haraad keliya maxaa yeelay waa qof yani maxaan ku leeyahay aan wax qabanayaa jirin oo aan seeto lahayn xadiidka yani ibnu maaja warinaya bayhaqi baa warinaya axmed iyo xaakim baa warinaya sheekh nasrudiin albani ayaa saxiix yeelay marka qofka wax celinaya ma leh wax seetaa ma leh wax dabara ma leh xakamo qabta ma leh cuntada iyo cabidda uunbuu ka tegayaa laakina wuxuu rabo ayuu samaynayaa siduu rabo ayuu u dhaqmayaa lidalika waxaa la rabaa in qofku uu taa iska bedelo ma aha waana ceeb waana dhibaato inaynu soonkeenna ka faa'iidno gaajo iyo haraad keliya oo aynu wixii ajar iyo taqwo ahaana eber keenno sidaa daraaddeed soomka sharciga ah kuma gaabsana ama kuma koobna ya inuu qofku yani ku gaabiyo soonkiisa cuntada iyo cabitaanka iyo galmoodka inuu ka tago keliya maaha laakiin waxaa weeye waa inuu qofku jawaarixda xubnaha oo dhan waa inuu ka sooba waa inuu ka ilaaliyaa dunuubta inay galaan macaasida waa inuu ka ilaaliyaa waa inuu iimaan iyo ilaahay u ajar uu ka xisaabsanaya qalbigiisa uu ka raadiyaa ya kuwaasoo ah min ahami calaamaati taqwa calaamadaha iyo tilmaamaha lagu garto taqwada iyo qofku inuu taqwadii xaqiijiyey yani kuwa ugu mudan sidaa daraaddeed yani waxaa la doonayaa qofku inuu soonkiisa uu ilaashado inuu soonkiisa ilaahay ku caabudo subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay alsiyaamu junna soonku waa gaashaan shaydaankaa lagaga gaashaantaa naartaa lagaga gaashaantaa dunuubtaa lagaga gaashaantaa macsida iyo zinada lagaga gaashaantaa ee fa idaa kaana yawmu sawmi axadikum haddii qofkiin maalintiisii uu soomanaa uu joogo falaa yarfath yacnihi yuusan rafath samayn badi min alkalaam hadal aan macno lahayn oo maalaa yacniya oo iska dheh ah oo allahuma mustacaan liita ha iska ilaaliyo walaa yaskab ya yani qofku inuu qof yani qarjajaclo ah oo muran low ah oo masaa'iba oo qaylo badan oo aan wax khayra ku hadlayn yuusan noqon fain saabahu axadun aw shaatama haddii qof uu caayo oo kusoo aabiyoodo o kusoo gardaroodo oo aflagaadeeyo falyaqul inii saa'im ha yidhaahdo anigu waa soomanahay sidaa ha ku yidhahdo xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey anigu waa soomanahay ha yidhaahdo yani qofka asaga waa is ilaalinaya carabkiisiibuu ilaalinaya haddii lagu soo aabiyoodo oo gardarro loola yimaadana gardaradii wuxuu kaga jawaabayaa inii saa'im fi bacd riwaayaat waxaa kusoo aroray inii saa'im wuu ku celcelinaya waa soomanahay ayuu ohanaya jaabir ibn cabdillaahi radi allahu canhu wa ardah wuxuu leeyahay idaa sumta haddaad soomtid falyasum samcuk war dhagahaagu ha soomaan dhagahaagu xaaraanta ha ka soomaan dhagahaagu xanta ha ka soomaan dhagahaagu yani maxaan ku leeyahy sharta iyo waxyaabaha xaaraanta ha ka soomaan
وبصرك أرجاغنا هالصوم أو حمانتها كصوم ودنوبتها كصوم ولسانك عربكاغنا عن الكذب والمآثم يعني بينت إيو دنبيدها كصوم عربكاغنا ودع أدى الجار وحاد كتكتا ديبكا يعني ددك درسك اللوجي سنة ددك درسك أمرنا لما أقول إلا ديبو هذا رمضان كان وبلغسي بدينا يا إن الله ديبين وليكن عليك يعني دوش هذا أهاته وليكن عليك وقار وسكينة دجناشو يهيني وهكام وقته مركع تصومنتها ما أنت تصومنتها ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء هكذا ما أنت أفركاك أو يعني ما أنت أفرنتها أو هذا صومنين إيه ما أنت أفحرنتها أتصومنتها إسكم بدها كذا وإن كلا الصعود هذا يعني مالمها هذا أفرنتها ما إن دروب تكون بنانتها لكن بالمها وحال الربا إني كاسي موقت الدجناشو إني كاسي موقت التقوى إني كاسي موقت الدور سران أي لو باهي لذلك وحاجرة سؤال فربدا أول الربا قفكم يسويدين قفكم على يورن بوهردا سلاده فرد كأهابو كتجيا وأنا سومي عنتدي يعبدي وكتج قفكاس معنى التقوى ما حقيقي معنى التقوى ما حقيقي معنى التقوى ما حقيقي محايا لما أنت رمضان مالين هردمه ومالين عمل ومالين شقو أو قرآن أخرسكي أو ذكري أو الدعادي أو محان كل سلاده فرد كها أو سنوينكي يا سيدو كله قفك هبينكي أو ننكو سو جيدية وح إلهي حرمي سبحانه وتعالى هبينكي أو مالنتوا سومية عشاء مركو تكدو أيو حوي وأيو حرق الله بحيا سيدو ربو يليا قفكاسو معنى التقوى ما حقيقي مايا آوي التقوى دي لحقيقيني لعلكم تتقون آوي إيمانا واحتسابا آوي يا قفكاسو ما حقيقي سيدا سوكلا قفكا كدقا موسمك رمضانك إن حولها لغو عيارو أو إسراف للي مادو أو يعني محان كوليها هاي ضدكي مسلمكها أو قاجيسان انت بريمو يسوقون تتيرسل يسلدعو هذا الصبح انت هرتقشك لغو صوداتشو قفكاسو معنى التقوى ما حقيقي ما حقيقي يعني قفك وحي ألا سيي عنتفي عن واقعون كرا لكن وحال الرباء إن تبذير إسراف إيمان إن المسلم كي أو قاجيسان عنتظر لقبين ولبا إنك الصومالي دا إنه ما بحبونا إن تبذير لن ما إنه إسراف داد كان نبا قاجيسان داد كان نبا إنه باهيسان داد كان نبا مدن إنه أقر منه إنه حوغا يرو كنو ولا نكعنو دبيتنا داد كان أقر منه oo bisha ramadaan aan gaajada ka hor istaagno oo dadkaas aynu waxtarno oo inagana aakhira ay keedin oo noqoto iyaguna ay adduunka farxad iyo maxaan ku leeyahay dharag ay u noqoto bishaas hadii kale qofku wuxuu noqonayaa calooshiis laciyaar ayuu qofku noqonayaa sidoo kaleeto qofka yani ramadaanka u yaqaana inuu soomanaan muuqata kaliya soomo oo cuntada iyo cabidda kaliya ka soomo laakiin wax kasta aysan wax ka xiran jirin qofkaasuna macnaheedu taqwada ma xaqiijin qofka isagana xaalkiisu uu yahay isaga yani maxaan ku leeyahay bisha ramadaan wanaajinaya cibaadadiisa laakiin shawaal marka la gaaro oo bishii ramadaan dhammaato ya arrintiisu ay noqonayso jaantaar rogan waxa kama amale سيتحرت ماله وقف سور ربيالية يعني قفك واحد بدل كما إيمان لذلك واحد كسر بحيسا إنه صن معنى تقوى حقيقي سيدا درادد تقوى ذا الشيء جاية مجرد دعوة معه إنه قفك له بس أنا يا أخي تقي أنا يدي له يوح هذا ليس كتمنيه أو للرجاية كليا معها لكن وإن قفك كم وقت حبنه ستقوى مركي قلبي قدكته وقلبي قاعد يدبكوي يالته وإن حبنوه كجوابان يعني إليسك فلارها إليسك مركا لغو قانو جدار عد أما مرا عد أما ورقع عد يعني وحي سميان يعني محان كلايا هاي انعكاس أما ريفلكشن وحال أورنج ريبان أمالينا يا أنه واغان سكول كديغان جرني بكاع أي سمينا لذلك إيمانكو وفلارا إليسو قلبك آغا كل عيا قلبك مركا يكون عان وإن قلبك أسوع عليا أو ريفلكشن ويمادا أو بكاع حبنها آغا وكموغدا موجود محايا لي سيدا سؤها النبي صلى الله عليه وسلم لكن دد بدنا waxay ku oranayaan nabigu wuxuu yiri attaqwa ha huna qalbiga intuu taabto waa sax attaqwa ha huna
التقوى ها هنا نبي قايري صلى الله عليه وسلم يا التقوى ها هنا نبي قايري يا وحديث كي الإمام مسلم وريي قيب كم ذوي لكن يعني وحال الرباء إن حبناها وكرر الشيء إلهي وحلي يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وح الشيء أنا إنسان هذي رمتاي هلا ينكركم حج الله إمادة وحل جوجر تقوت المامي كر الله إمادة لذلك إخواني في الله وأخواتي في الله وحن سودر دار مينا بشأننا كفائدي سنو إننا صون كأن كفائد هرادي يجاج كليا وحن إلهي ويدي سرنا إنه عبسي يتقون إرزاقه إنه رمضان كإنك أقبله إن رمضان وحي كدم بيا إلهي تقون نقصه والله سبحانه وتعالى أعلم. They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus.